dhakhaatiirtii iyo professoradii ugu mutacaalimsanaa Mareykanka oo Donald Trump dacwo ka ah kadib markii uu ka hor istaagay inay ka hadlaan konferensyo ku saabsan diabetes iyo waxyaabaha sababo sidoo kale madaxweynaha inuu diabetes looga shakisan yahay in dementia looga shakisan yahay cudurka la dhaho meel kasta uu ka bararay lugaha uu ka bararay meel kasta uu ka bololay Donald Trump in ay soo bandhigaan oo macnaha cadeyn buuxda sidoo kale ay keenaan in Donald Trump sidoo kale wasaaradiisa caafimaadka lagu eedeeyay waliba agriculture-ka inay indhaha ka daawanayaan cudurrada iyo caabuqyada Mareykanka ku soo socda iyo waliba kuwa hadda ka bilaabmay riskiga iyo dhibaatada uu keeno diabetes-ka balaayiinta dollar oo Donald Trump qolooyinkan asaga u shaqeeyay bilyaneerada ah ay leexsadeen oo ay ka leexsadeen budgetka Mareykanka macnaha ay sheegay rabaan ay wala dhaqmayaan ilaa iyo dhowr professor ayaa waxa soo sheegaya in laga hor istaagay konferensyo ama shirar ay ka qaybgal lahaayeen ama ay ka hadli lahaayeen oo sidoo kale afka laga qabtay inaysan ka hadlin afaarahaas ama arimahaasi wax ku aadan sidoo kale arintan ayaa waxa dabada ka riixay qolooyinka bilyaneerada ah ee Donald Trump lacagaha waaweyn oo balaayiinta uu ka qaato sidoo kalena ku tashkiiliyo wax kasta oo poolisiyada iyo waliba sidoo kale ku saabsan waxa Mareykanka laga dhahayo xaaladda Mareykanka sida macnaha ay sheegay loogu dhigayo dadka in wax kasta la daboolo in wax ayaga ku saabsan qolooyinka bilyaneerada ee aydooda waxyaabahan ay wataan manipulation-ka Mareykanka ku ah ama sidoo kale faragelinta ku ah security-ga Mareykanka khalkhalka gelinaya waxaas oo in laga hadlo maadaama uu sarrabin Donald Trump sidoo kale dhakhaatiirtan ayaa waxa la sheegay in critic ay ku ahaayeen Donald Trump in sidoo kale macnaha ay sheegay uu mishandle gareeyay waxyaabo badan oo ku aadan caafimaadka inuu mishandling lagu sameeyay ama la musuqmaasuqay sidoo kale biomedical research waxyaabaha loo yaqaano ee Mareykanka ama research-ka lagu sameeyo caafimaadka iyo waliba sidoo kale waxyaabaha laga sameeyo dawooyinka noocyadooda kala duwan research ay ku sameeyeen in manipulation ay ku sameeyeen qolooyinkan ganacsatada ah qaabka Donald Trump iyo waliba sidoo kale maamulkiisa ay u bedeleen caafimaadkii Mareykanka research centeradii ama goobihii baaritaanada lagu sameeyay daawadii la soo saaray wixii oo dhan in tayadoodii ay isbedeleen markuu Donald Trump xafiiska imaaday sidoo kale la ogaaday inay soo qarxin rabaan dhakhaatiirtan iyo waliba professorodan uu Donald Trump ka hor istaagayo goobahan ay hadal jeedinta ay ka sameeyay rabaan goobtan oo conference hall-ka ah ayaa waxay ku taalaa New Orleans Donald Trump ayaa wuxuu sidoo kale macnaha ay sheegay sababaha uu uga hor istaagay ayaa ah professorodan in ay macnaha diabetes iyo waxyaabahaas ay ka hadli rabeen professor lagu tilmaamay in uu yahay uu ku takhasusay sidoo kale medicine-ka rabayna in uu ka hadlo loo soo xushay dhowr professor oo loo soo xushay inay ka hadlaan caafimaadka Mareykanka medicine-ka meesha uu marahayo konferensyada waxyaabahaasi oo dhan sidoo kale dhakhaatiirta ayaa ku takhasusay diabetes-ka oo Donald Trump ayagana weerar culus ku qaaday in sidoo kale macnaha ay sheegay qolooyinkan ka soo shaqeeya ama special doctorada maadaama uu beegsanayo hadda dhakhaatiirtii specialistayaasha ahaa ama takhasuska kulaha waxyaabahan Donald Trump cudurrada lagu soo sheegayo sidoo kale soo qarxinayo dhibaatooyinka Mareykanka uu wajahayo in uusan sidoo kale u qalmin inuu xafiiska sii joogo ay sababtu tahay dhameeshiis inuu faraha ka baxay meel kasta uu ka baray uu nabaro lugaha iyo gacmaha iyo wajiga macnaha ay sheegay make up loo soo mariyo markii uu media hor imaanayo Donald Trump waxyaabahaasi oo dhan bal wax yar muuqaaladan cadeynta ah aan idin la wadaago The commander in sleep did a rally sitting down because now he's too sick to handle standing up for that long anymore. I'm a physical therapist with a doctorate in my field and 14 years experience working in home health care, treating geriatric patients with dementia, heart failure, history of stroke, all the shit that he has. Now, before we look at any clips, you need to understand they called this a round table, but nobody else spoke besides him until the very end. And before he let anyone else speak, he told them, "We don't need your life story. Make it quick. I got to get out of here." They only called it a round table so it might look more normal that he's sitting the fuck down the whole time. As his frontotemporal dementia progresses, his frontal lobe will no longer be able to inhibit him telling everyone what he really thinks about them. I don't need this. I got elected. I don't have. What the hell do I have to be here for? I got elected. I'm here because I like the farmer. Speaking of disinhibition as a result of frontotemporal dementia, he's being super gay again. Jesus, look at this guy over here. I don't know who the hell he is, but he is one hell of a specimen. I can. This guy. This is one hell of a physical specimen. I thought I was big until I met you, Joe. You know, you're fantastic. That's what I like.
Anyway, I just want to let you all know that I'm thrilled to be here at Custer Farms and Canada. Donald Trump ayaa sidoo kale astaamihii dementia in aan laga dareemin daraadeed ayaa wuxuu fadhi ku dhameystay rally dhan oo Wisconsin uu u aaday in uu uga soo ololeeyo qolooyinkan Republicanka doorashooyinkan soo socda midtermska iyo haday noqdaan waliba sidoo kale doorashooyinkan waaweyn ee soo socda ee madaxtinimo ee 2028 November dhacayo ayagana ay isku xigo si uu uga soo dhameysto codadka sidoo kale kalsoonidooda uusan macnaha already burburtay macnaha ishaga uusan ugu fiirsan uu macnaha u muujiyo dhoolatus iyo waxyaabo uu ku muujinayo in uu weli garabkooda yahay sidoo kale uu lacaga soo siiyay la sheegayo balse aysan arintaasi xaqiiq inay ku saleysantahay kala sidoo kale risil dhaxwareegayo farmerska ama beeraleyda in uu sidoo kale ku sasabo maadaama uusan waxba ka qaban karin fertilizersna uu u keeni karin dhaqaalaha Mareykanka erka maraha uusan waxba ka qaban karin Donald Trump in uu sidoo kale uu ku soo sasabo maadaama qolooyinkan cunsuriyiinta waxa kaliya oo ku socdo ay yihiin sasabasho in campaign ban ah sidoo kale in meel kale loo jeediyo oo ah in dadka liberalska ah iyo waliba sidoo kale conservative-ka macnaha ishaga la isku diro ama madaxa la isku geliyo waxaan ahayn uusan ka shaqeynin Donald Trump qolooyinkii ugu badnaa oo conservative ahna doorashooyinkan ee macnaha ka soo horjeedaan oo sidoo kale uu weeraray xildhibaano labada gole ee baarlamaanka Congress-ka iyo waliba sidoo kale Senate-ka ka kala tirsan uu weerar ku qaaday sidoo kale oo isla xisbigiisa kamid ah waxyaabahaasi oo dhan astaamaha marka dementia Donald Trump lagu tilmaamayo iyo sida uu u rabin in uu u muujiyo daraadeed ayuu raaligan dhan wuxuu ku dhameystay fadhi asaga oo fadhiyo Donald Trump sidoo kale idin wadaago asaga oo u adeegsaday golihiisa wasiirada iyo waliba sidoo kale wasaaradda agriculture-ka iyo waliba sidoo kale asaga White House-ka qolooyinkan macnaha ishaga uga shaqeeyo in aysan u ogolaanin konferensyada New Orleans iyo waliba konferensyada Washington DC lagu qabanayo ku saabsan dementia iyo waliba sidoo kale diabetes-ka ku saabsan ama sokorta iyo waxyaabo noocaas ah cudurrada Mareykanka ee qabsaday sidoo kale laga qaado cuntada noocyadooda kala duwan ee Donald Trump intooda badan uu hadda la dhiban yahay iyo sida uu sidoo kale macnaha ishaga ugu diiday ama uu uga mucaaraday ama uusan u rabin inay uga qayb galaan dhakhaatiirta uu ku beegsanayo Donald Trump uu sarrabay inay ka hadlaan xaqiiqada Mareykanka ka jirto sida ay wax u jiraan oo sax ah balse uu qarinayo uu daboolayo wax kasto si uu sidoo kale macnaha ishaga aan loo ogaanin sirta ka dambayso in lacagaha la luusado in sidoo kale macnaha ishaga aan waxba laga qaban waxyaabaha hortabinta caafimaadka ku aadan taa bedelkeedana ee Mareykanka iska maamulan lahaayeen qolooyinka bilyaneerada ah hadii health sector-kii ay noqoto ama caafimaadka hadii ay noqoto economy-gii waxyaabo ayaga faa'iido u ah kaliya ay ka shaqeynayaan ayna ugu badan yihiin Mark Zuckerberg iyo waliba sidoo kale ninka lagu magacaabo asagana Elon Musk oo ah ninka ugu weyn afaarahan ka dambeeyo. We're now at the point where leading scientists and researchers are being threatened with arrest and being forcibly removed from conferences simply for disagreeing with the White House. Over the weekend, 5 diabetes researchers, including a lead editor in a critical scientific journal, were removed from the field's premier conference in New Orleans. Why? Their only crime? Criticizing Donald Trump and handing out editorials criticizing the White House. The piece they were handing out accused the Trump administration of dismantling biomedical research in the United States. This occurred outside of a conference hall where Donald Trump's director of the National Institutes of Health was scheduled to speak. One of the people ejected was named Stephen Kahn, according to MedPage. He's a University of Washington professor of medicine, editor-in-chief of Diabetes Care, and the director of a federally funded diabetes research center. We're now at the point where scientists and researchers who criticize the administration are being forcibly removed from conferences and threatened with arrest simply for criticizing the administration. wuxuu uga bixinayaa konferensyadii ay ka qayb gali lahaayeen researchers-ka iyo waxyaabaha cadeymaha ay Mareykanka ku kalifay in sidoo kale ay kalifaan cudurrada noocan ah dementia-ha diabetes-ka waxyaabahaas inay kaga hadlaan uusan doonaynin shirarka ama konferensyada heer qaran ee sidoo kale la qabanayo Donald Trump uu ku beegsanayo dhakhaatiirta uu sarreeyay inay ka hadlaan wax saxdo jiro corruption-ka ku aadan arrimahaas in sida loo handle garanayo ee qaldantahay waxa soo dhan uu sarreeyay inay dhayihiisa maqlaan uuna ku beegsanayo maadaama ay asaga sidoo kale politic ahaan Donald Trump cid maanta ku raacsan waxyaabaha uu aqalka cad ka wado aysan sidoo kale aysan jirin hadii uu muuqaal ku soo gaaro xiriirkan muuqaalka like noo saar naguna soo biir waana maasantahay